السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن برواقة جانك أنا من سعودنا ولا وذا بجنل هذا نوع عصب تايسو دو سبسكرايب إيساري كصابير أصحابتي هذا هورنا ولا جوكتيني فيديو لايك إيشاري نصر ما توحيني وضع شاكير كل عضي كبر صاحبتي عاشا شكلا نوحي كل عضي دلقا كينيا مغالطة نيروبي سيدا بحافظ صومالي إسلي عاشا waxay leedahay waxaan imaaday Nairobi anigoo gabar daayar ah waxaan maadaameysan dadna ii joogo waxay siinay lahayna waxaan bilaabay in aan magaalada galo soo xamaasho maraan bilow hore waxay tiri waxaan ka shaqeynay dukaan habaan dukaankayga waxyarkaan ka helan waxaan ku cunay iyo waxaan magaalada ku maro iyo shoppingga ga dhigan jiray markii dukaankii ay shaqadiga dhamaadeen waxaan bilaabay inaan sii aado shaax wareejiyo oo gabdha shaax kadaya aan shaaxi la gato si nolosha haataba dad badan ayaa magaaladii ku bartay nolosheedii sidaasay ku socotay cabaar kadib asagana wiil markaas isna magaalada markaa aan soo galay agteeda soo galay ayaan isbaranay wiilkana sideeda camal dukaan ayaa shaqa laga siiyey dukaankaas uu ka shaqaysan jiray wiilkii wuxuu dukaanka ka shaqaysto oo shaqadii wadaba lacag yar oo ka meel ka dhigtay lacagtii ayuu wuxuu yiri waxaan ku gadanayaa dukaan yar ama meel yariis oo wax aan dhigto wiilkii wuxuu bilaabay wuxuu asigana inuu meel dhigto saas kusii wato noloshiisa anigana shaaxigii iyo waxaygii iyo baatiyaal yar aan wareejiyo ayaan ka daba wareegayay wiilkii anaga sheekaana dhex martay waa isku fiicnaanay inaan xiriir yeelanaan bilownay qof markaas ee cajabiyo ahaayay nolosha xoogaa yar isdabacaad fahanay anigana shaqadeyda aan iska sii wato baatiyaashaan iska wareejiso waxaad ka cuntumaan wax kale dahab yar ku gado saasaan anigana ku noolay aan ku watay guri aan cid aan qaraabanahayna waan ku hoyan jiray wixii jiifa xaggaas aan u tagi jiray wiilkii sida waxay u wadaba meeshii siyarteeda u bilaaltay dukaan oo ka dhigtay dukaankiisii oo ka gadi jiray dhaqaalaha kasoo galay maalgadab wuxuu yiri walaalay waxaan rabaa inaan ku guursado hadda nolol iyo guri waa garayn karaa xoogaa businesskii hore oo igu socday marka maadaama cabaar isnaqayn haddana aan xiriir lahayn soo dhawow waxaan rabaa inaan meel wada degno oo dad famila noqono sheekadii wiilka waa ka oggolaaday guri yaraan kiraysanay gurigiyaan degnay kadibkeedna meeshaasa noloshii kasii ambaqaadtay wiilku wuxuu yidhi hadda waxaan haysanaa hal dukaan gurigeena iyo biilkeena lay ku filan tahay marka waxaan rabaa inaan mid kale ka sameeyo anigana waxaan yidhi diyaar waaye mid kale noo sameey dahabkeygan gadgadayaa waa kuu dhiibay adigana lacagtaada yarta hadda kuu seef garaysatay ku dar dukaan kale noo furo dukaanka kale oo lacagii isku aadi wuxuu daysaday wixii aniga dahabkeyga ahay wuxuu asigaas markii la isku daray haddana dukaan kala furanay labadii dukaana maasha allah noo barakoobay ninkii lacag fiican oo helay dukaamihiisa oo sii weynaystay mid kastaba maasha allah oo ka dhigay dukaan weyn oo intaasoo lacag kasoo gasho ninkii markuu arkay dukaamadii iyo lacagta tiradeedii wuu isbedelay dabeecadii aan ninka ku aqaynaba dabeecadii ma aha wuxuu leeyahay tiri maaha maanta waan dhirganahay banaankan kasoo casho ma jirto anigana markaa waxay tiri intaas aan waxaas ka daba wareeganayna cunugii goobaadan dhalay haddana kii labadan caloosha ku sidaa gurigeenana maasha allah wixiisa biilkiisa waa noo keenaa wixii gurigaasan deganahay wax dhibaataa kale kuma qabo laakiin waxaa islee ninkii markuu hantida helay isbedel yaraa ku imaaday wuxuu bilaabay inuu yidhaa maanta casaaba ii casuuman asxaaba is aqoon jirnaa maanta casho geyn rabaa gabdhaas aqoon jirnaa maanta ii imaani rabo marba cashuu ku socdaa marba meeluu ku socdaa meelba meelaan aan ka casuumanahay ama qof aan casuumo u leeyahay haddana wuxuu yidhi adi ima raaci kartidoo qoflay magaala ma ihid meeshaan xijaab weyn jiidaysaa anigana waxaa ahaanteeda waxaa ahay tiri qof diinta ku adadag qof dirac iyo waxyaabo kasta ma ahayn ee waxaan jeclaa inaan aad isku xijaabo qofna jecelna meelaha inay wareegto maqaayadaha fadhiisatana maanan ahayn ninka wuxuu yiri walaalay waxaan bartay gabdho shishidan gabdhahaasaan casuumaad geena ama gabdhahaas iraaca adiga ma iraaci kartid because qof boorinaa tahay adiga marka gurigaaga joog sheekadii sidaan waxaas ka dhageystaba oo saas sheekadii ku wadaba maalgadab waxay waa soo kordhiyey wuxuu yiri tiri waxaan rabaa inaan gurigeyga ku casuumo iisoo racan inaan cunto noo karsan ma baahnid laakiin qolkaaga iska gal intaan sheekaysanayno meeshaan waxaaba la socdaba guruub dhan oo naaga ah iyo niman tartiib ninkii isbedel weynaa ka muuqdo iyo inuu aniga iyo suu yira waa xijaab weyn tahay iyo ma labisan kartid
intii dhib aan ku qabayba waan iska aamusay. Fursad waxay tiri shaax ma wareejin karo, hadda keligay ma ihi, booska ilmo yaryaraa joogo, noloshan waxay i batay in aan dulqaato. Waxaan dhahay tiri inta hadda kadib aad ilmaha dad la tuugi lahayd ama ilmaha aad banaanka wareejin lahayd, wallahi dulqaado intaa kana ka dhashid, kana aad xoogaa kaaga weynaado, wax dad haataa looga taga ila ekaadaan iska dulqaado. ninkii markuu arkay inaan aamusanahay wuxuuba ii maleeyay tiri inaan bahdiilka iska rabo. sheekada halkii uu kasii waday. naagii maalmo midow keensadaa si hawsha u socotay. maalinkii dambe midow guriga iigu keeno uu leeyahay naagtan waa saxaawaaye, waa gabaraan shukaansaday, guuraana ku heshiinay, inaan guursanaan rabnaa, gurigaan hadda asoo leh qolaa ka banaan, inta aan guriga kale waxaan ka diyaarsanaynane qolkaasi kale iiti dege, adi ilmahaagane qolkaan kale ku xarooda. noloshaas way cunto ma weyse, wax kastoo usoo ku dulqaatay, laakiin tan waanu dulqaadan waaye. sheekadii waan ka diiday, waxaan ku eri kaama yeelaayo, guriga naagtaydan ku haysanaya, ilmaha aniga ilmihayga banaanka noo saar, ama naagtan meesha la aadaysid la aada iga bax. wuxuu yidhi tirwaadab daranta hadaydana kugu jirto qolka joog, haddaa rabtidna banaanka u bax. naagtii oo maqlayso horteeda. naagtiina waaba naag loo hiiliye inaysan ka taagtay bilowday. haddaysan waxaa ku qanacsanen ha baxdo, haa ina itiraha way ii cuntami weyse noloshii. gabaraan waagii aan shaaxa gadi jirnaa isdhaqayna wacday. waxaan yidhi waxyaa u sheegay, sheekadii dhanaa u sheegay dhibkaan ku jiro. waxaana u sheegay inay xoogaa yariisa karabisiiso intaan aniga aan lugayga kusoo istaagaya, haddana ay ii hayso ilmaha iyo gurigeedana aan joogo. waxay tiri maw ninkii marka ilaah tan yaa iga saaray way ka taagneedba. markii aan saas guriga uga soo baxay, warqadayduuna iga daba keenay, waaba ku furay. war waxaa layidhi tiraa naag uur lama furanto, isdaji. aniga waxay tiri waaba maba furin iyo furin la-aan, maba ka fakerinba. waa iska soo baxay. gabadhi saaxiibtay gurigeedii aa imaaday, halkaasaan joogay intaan ka dhalo. awalba waan dhadhawaaye, cunugaygaan dhalay waxaawaye wax yaroo ii soo gaaray, kii kalena xooga yaroo ii roonaaday. laakiin qof islaameeda intaas dhan ku hay karahe adiga iyo laba cunug haddaad tihiin. waxaan bilaabay in aan shaqa raadi, haddana ma dukaana aada ama shaaxa aada, shaax inaan karsado, ilaan guri ilmi ii joogaan aan u baahanay. gabadha gurigeeda aan kusii dhaaftay ilmihii subaxii, shaaxa anigay iyo waxayga iyo habeenkii aan soo wareejistay subaxyadii markastoon jaanis helaba. xoogaa lacagta aan ka helanay madaxa kuwa ilmahan caanaha uga gadamaan inaan kuwa kale meel dhigto, inaan aniga wax gado waan iska dhaafay. baatiyaashaydii ama ii jeexnaada ama ii ka gabnaadaanay kuwayga unbaa iska wataa xijaabkaygaas. sidii waxaan ka wataba macaamiilaan helay. shaaxi marka inaan warwareejiyo waa iga fududa, dadka macaamiisha unbaan u geystaa, lacagta inta iga soo gashaan kasoo qaataa. haddana markaan kariyo intaa macaamiishaasaan u geystaa, xiyaaba ilmahayga ayaan u imaadaa. sidaa waxaan ku wada lacag meel ka dhigaba. markii dambe waxaan awooday inaan hal qol kiraysto. qol yaraan kiraystay, gabartiina alaab yara i siisay joodariyaal. waxaan sameeyey alaabta ayaan qolkii iska dhigtay. cuntada yarta iyo kiradana meeshaasaan ka helaa, iyo wixii markaas gabdha ii aqayni jiray waxay ii keenaan oo dhar ah, ilmaha ah, iyo wixii lacag aan ka helaba. saas ayaan ku maarayn jiray. wixii aan sidaan ku wadaba aan sidaas ku wadaba. maalinka dambe xoogaa way ii badatay. gabar dukaan furanaysa waxaan dhaha walaalahi aan lacagta qaar kugu darsado, lacag yaraan haystaa hayay tiriyeen. gabadhi dukaanka furanaysa lacagta ku darsaday, dukaankii waa bulaalay. faa'iido fiicanaa iga soo gashay, bishiiba xoogaha iga soo gashay. iyo halihii aan shaaxa ka keenay, qolkaygii way igu filnaatay kiradii, cuntadeydii, iyo weliba wax meel aan ka dhigto. wixii soo hara waxaan bilaabay inaan meel dhigto, inaan aruuriyo. kadib keedna aan saas dukaan kale ku furto, si aan shaaxa uga raysto oo ilmahaygu haysto. sidiisaa nolosha ku wada u aruuriyaba. markii dambe haliiba iigaas wax dukaan lagu furo, dukaanaan ku furtay. wiilaan waxaan yidhi walaalow iigad, adigana waxaan ku siinayaa halahaada dhalinyaro ahay shaaxaada. gabadhi kalena waxbaa iga soo galay dukaanka yarta sheerka aan ku darsaday. dukaankan kale wiilka ii ka daray lacaga iga soo galaysay. shaaxi marka hadda inaan sii wado muhiim ima ahayn. gurigana waa iska bedelay,
guri qolay fadhiyaan tagay ilmahaygina anigaa saas ku haystay markaan jaanis helana dukaankaan tagaa waa soo dhinacaygaan ka gataa wixii loo baahan yahay u dalbadaa marka kalena ilmahaygaan haystaa ninkii intaas juuqay ma soo dhihin maxay dhashay iyo maxay wadaa iyo kuweygiisay ku dambeeyeen ma dhihin naagtiisuu iska guursaday naagtaana marka horeba naagina waxay ku heshiiyeen noloshaasay ku heshiiyeen inay isla soo baashaaraan maqaayadaha ka casheeyaan banaanada isla aadaan oo marka horeba isku barta inay ku heshiiyeen ay aheeda ee midna haysay gurigooda inay joogto ay rabto ama inayna wax wada dhaqdaan rabto ayada naftigeed maba aheedba marka hore kadib waxay saas ku socdaanba ninkii dukaamadii tartiib tartiibay ugu burbureenay naagtii asigoo isku dhaceenay naagtii way ka carartay gurigii markuu kiradii bixin waayay bilooyina gurigii waa laga soo buriyey dhallinyar asxaabtiisuu la degay dukaamadii iyo businesskiina waaba iska soo afjaarmeenba maalinka dambe wuxuu asoo shaqo raadinayo dukaana wuxuu igu yimiday meeshii aan aniga buildingkii markaas aniga aan dukaamada ku lahay ayuu yimiday dukaamada meeshaas laga ka rabaa anaa khibrad leh meeshaana laygu soo xiray qofa meesha shaqo ugu baahan qofka shaqo baawiisa ku xira asigoo la dhahay leeba laysoo hormariyaba wendhaa qacigu sii wuu naxay wuxuu yiri maxay qoftan qofti maha miya iyo waxaan siiyey si heerkan u gaartay markaasaan waa salaamay aniga waxaan arkay inuu naxay anigana ugumaanan darin soo dhawow walaal waa fiicannahay seeta adiga noloshaadi ma ku hagaagtay waxna ceeb ah iyo cadowtinimo ah iyo too igu dhigay midna maba dareensiininba waxaan yiri ma shaqaa raadinaysaa oo dukaamadaadii wuxuu yiri wixii walaalay waa iga burbureen naftigaaga soo baxay hadda haddaan ku arkayna waaba jaanis fiican iyo cafi haddana naqshadaysanahay waa aniga maba kasii badani warkii walaal ilaahay ha kuu sahlo hortaada u socoleenba dhahayba maalintii meeshaas ugu bartay wixii ka dambeeyey wuxuu bilaabay inuu soo jilco xafid badani weydiisto ilmahayga ma arki karaa yiraaho kadib meeshii aan aniga dukaan kulaa meel agteeda ah ayaa shaqa laga siiyey dukaankaas waa isla gadaa ushaxiisa laga siiyaa anigana makeyga wiil kala ii gado laakiin markaan jaanis helaan gataa wuxuu bilaabay inuu weydiisto inuu ilmihiisa soo arka maalinkii meeshiisaasuu ka shaqaysaa dhalinyarana wuu la degan yahay marka waxaa idiin sheegayaa nolosha waa meerto naftigana mararka qaarkood wuu soo degdegaa ee iska ilaaliya